waxay guursatay isaga oo ka weyn 22 sannadood. dadka dhamidood waxay ku eedeeyeen inay u guursatay hantidiisa iyo lacagtiisa awgeed. waxa uu ballan ugu qaaday haddii ay guursato inuu ka dhigi doono agtaradda ugu caansan adduunka. maxay fashay kadib markii ay noqotay xidigad caan ah oo weyn. waa maxay waxa caalamka ka yaabiyay? da'deedu markay ahayd 17 sano, Sophia Loren waxay kamid ahayd mid kamid ah gabdhaha ugu quruxda badan Talyaaniga. waxay la kulantay soo saare filin oo magaciisa la yiraahdo Carlo Pontin mar ay u tartamaysay boqorada quruxda. soo jiidashadeeda aadka u heerka sareysa darteed, Carlo waxa uu ku dhacay jacaylkeeda markii ugu horeysay ee uu arkay. waxa uu ka dalbaday guur iyada oo ah gabar yar oo hadda soo qaangaaraysay. waxa uu ka weynaa 22 sano. way ka aqbashay Sophia guurkii iyada oo aanba wax badan fakirin. dadka dhamidood waxay yiraahdeen waxa ay u aqbashay guurkiisa waxay rabtaa inay dhacdo hantidiisa oo aysan hal santina ka tagin. maxaa ku kulifaya gabar sidaas u qurux badan inay guursato nin aabaheed leeg waxaan ka ahayn damac ay ka qabto lacagtiisa? balse kuwaasi war uma aysan hayn noloshii adkayd ee ay ku soo kortay Sophia. hooyadeed waxay ahayd haweeney aad u qurux badan, waxayna xiriir la lahayd nin ganacsada ah oo aad taajir u ah oo qani ah. waa intii aysan Sophia dhalanay waxa uu ninkii ganacsada ahaa hooyadeed u ballan qaaday inuu guursan doono mustaqbalkan dhow. balse markii ay hooyadeed qaaday uurkii Sophia, waxa uu diiday inuu ictiraafo ilmaheeda. waa uuna inkiray. wuxuu yiri anigu Sophia ma dhalin. waxa uuna iyada iyo hooyadeed u cayriyay banaanada. Sophia waxay hooyadeed kula noolayd sanado badan gaajo iyo fakhri. xaaladoodiina waxay sii murugtay markii uu bilowday dagaalkii labaad ee adduunku. gurigooda ayaa waxa ku dhacay madaafiic iyo bombooyin ay soo tuurayeen diyaarado. Sophia waxay aad uga dhaawacantay wajigeeda. dhaawacii waxa uu wajigeeda uga tagay calaamad ka muuqanaysay garkeeda intii ay noolayd oo idil. Sophia iyo hooyadeed waxay u wareegeen awowgood oo ku noolaa magaalada Napoli oo ku lahaa meherad lagu sharaabo ayagoo ka shaqeynaya meheradaas. waxay ku khasbanaatay inay ku shaqeyso kabalyeeriyad iyadoon weli si fiican u qaangaarin, da'deeduna tahay 15 sano. quruxdeeda darteed meheradii waxa iska soo buuxiyay wiilal badan oo dhalinyaro ah iyagoo doonaya inay arkaan. Sophia markii ogaatay inay tahay gabar aad u qurux badan, waxay go'aansatay inay shaqada ka tagto. markay da'deedu maraysay 17 sano, waxay ka qayb qaadatay tartankii boqorada quruxda ee Talyaaniga wayna ku guuleysatay. saan hore u soo sheegayba waxay la kulantay film soo saaraha Carlo wayna guursatay. kumana aysan jeclaan si dad badan u malaynayaan hantidiisa iyo lacagtiisa faraha badan. waxay jeclaatay shakhsiyadiisa dhabta ah iyo sidii uu caawiyay si ay ku noqoto agtarad wax jisha. waxay dareentay inuu yahay aabihii ay weysanayd nolosheedii oo idil iyo yaraanteediiba. inkasta oo aad uga weynaa, haddana waxay dhankiisa ku dareemaysay amni iyo ammaan, farxad iyo deganaan. waxaa xaqiijinaya inay odaygaas si dhab ah u jeclayd xiriirkii ay la lahayd atoorihii Cary Grant. labadoodu waxay isla jireen dhowr filim, waxaana Cary aad u cajab geliyay quruxda Sophia. waxa uu soo bandhigtay kalgacalkiisii, aad ayuu uga baryay in ay guursato. atoorahani waqtiga uu jacaylka u soo bandhiganayo ee guurka waa waqtiga ay u doonanayd odaygii Carlo oo wali ma uusan guursan waqtigaas. waxaana u furnayd in ay guursato atoorahan quruxda badan oo iska dayso odaygaas da'da ah. jilaagan Cary waxa uu maalin walba u soo diri jiray hadiyado iyo warqado jacayl, maalin walba guriga loogu keeni jiray. balse Sophia waxay u sheegtay in aysan guursan karin, ayna ka xun tahay, aysan rabinna inay khiyaanto ninkii ay u doonanay. Cary waxa uu ahaa nin aad u qurux badan oo la yaab leh, gabar kastana ay rajeynayso inay hesho, balse qalbigaygu waxa uu doortay Carlo. Sophia iyo Carlo waxay isqabeen muddo gaaraysa 50 sannadood. guurkoodaasina waxa uu marag u noqday inay Sophia jeclayd ninkeeda oo aysan ahayn mid been sheegaysay. waxay odaygeeda Carlo u dhashay 2 ilmo ah, waxayna ahaayeen qoys dhammaystiran. 50 sano ay ku jirtay aflaam jirista way ka soo dhaxiftintay, waxayna xiise gelin jirtay qalbiyaal malaayiin gaaraya. waxay jishay muddadaas 48 filin oo isugu jira Mareykan iyo Talyaani. waxay noqotay agtaradii ugu horeysay taariikhda ee mushaharkeedu gaaro $1 milyan. 50 sano kadib oo film jilis ahayd, waxa uu geeriyooday odaygeedii sanadii 2007. Sophia markii ugu horeysay nolosheedii 50 sano kadib ayay waxay dareentay kelinimo iyo cidlo. Carlo uguma uusan jirin oo kaliya booskii ninnimo, ee waxa uu ugu jiray booskii aabaheed iyo saaxiibkeed. riyadaydu waxay ahayd inaan helo aabe, nin daacada, caruur, intaba waxa ii rumeeyay Carlo. qofka aadanaha ahi haddii uusan lahayn ballan oofin iyo daacadnimo waa qalfoof maran. si aan muuqaalo badan oo noocan oo kale idinku soo sameeyo ha ila dhaafin subscribe, like, follow iyo share. waa Cabdullaahi Cabdikariin Khaliif
oo idin leh nabadgelyo. Salaam markasta.